kusoo dhawaada warka telefishinka Star TV xarunta magaalada Boorama warka waxaan la socodsiin doonaa aniga Cabdinaasir Ali Illa qodobada warka ugu doorkorona waxa kamid ah xildhibaanada dawladda ku meel gaarka ayaa waxay ku weediyeen dawladda Xasan Sheekh Maxamuud inay iibinayaan xeebaha dalka Soomaaliya haweenaha maamulka xibinaya xeebaha waxa uu sheegay in aanu taabacsanayn inuu loo sameeyo gobolada dhexe ee Soomaaliya asibad qadiim jabin ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Tika ee dalka Kenya wadarintaasi waxay ahayn qodobada warka ugu door corona haatan ku soo dhawaada warkii oo fidsan qaar kamid ah xildhibaanada ku meel gaarka ayaa waxay dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ku weedeen inuu iibinayo xeebaha dalka Soomaaliya warkaas faafahintiisa waxaanu hay wariyeena Cabdiqaadir Axmed Jaamac kulan magaalada Muqdisho ay ku yeesheen in ka badan 50 xildhibaan oo baarlamaankii ku meel gaarka ah ay ku eedeeyeen madaxda ugu sareysa dalka inay wadaan qorshayaal ay ku doonayaan sida ay sheegeen in badda Soomaaliya ay ku iibsadaan xildhibaanada ayaa sidoo kale kulankooda waxay kaga hadleen dhibaatooyin haysta sidoo kale beegsiye ay sheegeen inay ku hayaan al-shabaab xildhibaan Xaaji Shukri oo kamid ah xildhibaanadii hore muddo sanadii bilooyin ku xanuunsanayay magaalada Muqdisho oo kulan ka qayb galay ayaa nasiib darro ku tilmaamay in meel cidla lagu iloobo sida uu hadalka u dhigay xildhibaanadii soo dhisay dawladda Soomaaliya anaga 2005 إلى الله كل يوم يلا نبكي لسومري إن الشيء بدنا نباتري دولا نملا وحلو كاني تبنمو لسومري نمو يدولا نمجعيلا لو كاني دولا نملا مسك إيمانه وأنتعني من كباوك مدو قبل يطول يسدح بيها هاي تجوك بعضما كسيما مدحوينا صنع أنا باور لا يمسينا باور مهاست وحمهاست وادي مهاست ونفتيس صاروا بسرعة مركز ساس دولة لما معه xildhibaan Salmaan Maxamed Ibrahim ayaa sheegay in madaxda dalka ay xusul dub ugu jiraan sida uu sheegay inay iibsadaan badda Soomaaliya sharci lix qodob soo saaray oo ah dhaxal dhowr leeyahay oo ku saabsan badda hantida Soomaaliya ku saabsan waxaan lagama hadli karo ciidanka fududka ka geli karto madaxweyne Xasan Sheekh bishii la xaasibtokeedii inuu UN ka warqad u diray uu leeyahay anaga iyo Kenya waxaanu rabnaa muranbadeed baa naga dhaxeeya in la calaamadiyo gudoomiyihii baarlamaanka iyo ku xigeenkiisii labaad hadda Norway bay hadda joogaan arrimaha baday wada lambar 1 waxa uu ah oo arrintaa wada waxa weeye waa madaxda sare ra'iisul wasaaruhu habeen dawladda ku raacay idaacadda dawladdu ka hadlay wuxuu leeyahay anaga iyo maaragtay cidii muranbadeed naga dhaxeeyo ha u mareen wadada sharciga war anaga Kenya naga haysataa Kenya dhulbay naga haysataa goorma muranbadeedka naga dhaxeeyay ma jirto bad naga dhaxaysay ma jirto siyaasiyiinta xilka kala duwan ka qabta dalka Soomaaliya ayaa waxay dhibaatooyin kala kulmaan al-shabaab oo u arka inay yihiin cadowgooda haweenaha maamulka xibinaya xeebaha waxa uu sheegay in aanu taabacsanayn maamulada laga sameeyo gobolada dhexe warkaas waxaanu hayay wariyeena Cabdiraxiin Cabdilaahi iyadoo shalay madaxtooyada Soomaaliya looga dhawaaqay in lagu saxiixay heshiis maamul loogu sameeyo gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa maamulka xibinaya xeebo qayb ka ah gobolada maamulka loo sameeyo maanta waxay sheegeen inaysan qayb ka ahayn heshiiskaasi Cabdullaahi Cali Maxamed Kadiye Baarleex madaxweynaha maamulka xibinaya xeeb ayaa wuxuu sheegay in dawladda Soomaaliya ay been abuur ka sameysay saxiixiisa isla markaana maamulkiisu aan qayb ka ahayn maamulkaasi waxaan mar walba ka dagaalameynay in la tixgeliyo mar walba ay hoggaanka hayaan ama lahaashaha ama ownershipka inay leeyihiin dadka raba inay wax dhistaan waa mabaadiida xibin iyo xeeb waa mabaadiida anaga aan wax ku dhisanay taasaan mar walba jecelnahay in dadku ay waxooda soo dhistaan maamulada deegaanka ka jirana tixgelin badan laga siiyo laakiin muhiim ma aha maamulada inay hormuud u noqdaan hormuudka waa inay dan noqdaan dadka wax dhisanaya taas waxaan mar walba leenahay waxa cad in la jabiyay dastuurkii in la jabiyay rabitaankii dadka oo ahaa inay dadku dhistaan waxay ayaga raali ka yihiin taasaan uga soo shalay isbuuciyo ka horna aan ka sheegnay inaan ka soo horjeedno mabaadiida ah inay dawladda federaalka ku xad gudubto rabitaankii dadka ay rabto inay wax u dhisto ama ay caawiso Cabdullaahi Cali Maxamed Baarleex sidoo kale wuxuu sheegay in loo baahan yahay in dawladda Soomaaliya dhexdhexaad ka noqoto maamul sameynta gobolada dhexe dadka deegaanada sina loo daayo qaabka ay maamul u sameeysanayaan in la tixgeliyo mar walba ay hoggaanka hayaan ama lahaashaha ama ownershipka inay leeyihiin dadka raba inay wax dhistaan waa mabaadiida xibin iyo xeeb waa mabaadiida anaga aan wax ku dhisanay taasaan mar walba jecelnahay in dadku ay waxooda soo dhistaan maamulada deegaanka ka jirana tixgelin badan laga siiyo laakiin muhiim ma aha maamulada inay hormuud u noqdaan hormuudku waa inay dan noqdaan dadka wax dhisanaya
taas waxaan mar walba leenahay waxaa cad in la jabiyey dastuurkii in la jabiyey rabitaankii dadka oo ahaa inay dadku dhistaan waxay ayaga raalli ka yihiin taasaan uga soo shalay isbuucyo ka horna aan ka sheegnay inaan ka soo horjeedno mabaadiida ah inay dowladda federaalka ku xadgudubto rabitaankii dadka ay rabto inay wax u dhisto ama ay caawiso sidoo kale wuxuu ka digay in dowladda Soomaaliya ay isku dirto beelaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolada dhexe ee Soomaaliya munaasabad qalinjabinaya waxay ka dhacday magaalada Teke ee dalka Kenya warkaas waxaynu hayay wariyeen Cabdi Fataax Maxamed Cilmi munaasabadan oo ahayd mid ay ku qalin jabinayeen arday gaaraysa 5517 arday oo ah dufcadii lixaad ee ka qalin jabisa jaamacadda Mount Kenya University ayaa waxa ay ka dhacday magaalada Teke ee dalka Kenya munaasabadan oo si heersara loo soo agaasimay ayaa waxa lagu soo bandhigay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka iyo sidoo kale wax qabadka jaamacadda Mount Kenya University muddadii ay jirtay waxaana munaasabada ka soo qayb galay 10,000 oo dad ah oo isugu jira macallimiin arday iyo waalidiin intaba waxaana si heersara munaasabada loogu casuumay wasiiru dowlaha waxbarashada Somaliland gudoomiyaha guddiga tacliinta sare ee Somaliland safiirka Somaliland u fadhiya dalkani Kenya danjiraha dowladda federaalka ee Soomaaliya u fadhiya wadankani Kenya wasiirka waxbarashada ee dalka Uganda iyo mas'uuliyiin kale waxaana dadkii ka soo qayb galay munaasabada dhammaantood ay si weyn ugu qanacsanayeen jawiga degan ee munaasabadu ku socotay markii munaasabada ay soo idlaatay oo la bixiyay abaalmarinadii iyo shahaadooyinkii loogu talagalay ardaydii qalin jabisay ayaa wasiiru dowlaha waxbarashada ee Somaliland Ahmed Nuur Faahiye gudoomiyaha guddiga tacliinta sare ee Somaliland Professor Hussein Xasan Guuleed iyo safiirka Somaliland u fadhiya dalkani Kenya oo munaasabada uga qayb galay mansab dowladnimo aad u sareeya ayaa la hadlay TV-ga Home Cable oo ahaa warbaahinta kaliya ee ku hadasha afka Soomaaliga ay ka qayb galay munaasabadani maanta qura ma aha shalay iyo maanta aad baan ugu faraxsanahay shalay waxaan tagnay kombaska jaamacadda ee Mount Kenya University waanu soo aragnay haddaan ku yiraahdo maan arag Mareykan meel ka sokayso aan ku arkay laababkan ma jirto waad iga beensanaysaa waxaan kaloo ku faraxsanahay jaamacaddu waxay qayb ku leedahay Hargeysa oo ay represent garayso Maymuna waxa weeye insha Allah waxaanu ku dadaalaynaa inaanu ka dhigno tan oo kale waana la casumay waxaan la ku casumay sida iyo habka iyo nidaamka ay u shaqayso jaamacadani dan kalena waanu kala hayno taanu kala waxa weeye mar haday noo soo qoratay oo ay aanay wali bilaabin shaqadeedii bal inaanu dareen hoose ka yeelano sida ay u function gareynayso oo hadhow aanu kula xisaabtano markaan xagga timaado yani standardkii ay ku haysay Nairobi ma soo gudbiso ma keento mise mid ka hooseeya ayay hadhowto la imanaysaa wafdiga kan Somaliland ka yimid wasaaradda waxbarashada ka socda waxay ka mid tahay xidhiidhada abuurmaya Somaliland iyo Kenya dadku xidhiidhadana waxa ugu muhiimsan wixii aqoon isweydaarsiga iyo farsamaha gaar ahaan wixii inaga waxa baahida ugu weyn danta ugu weyn ka leenahay Kenya waxa weeye aqoonta inaan ka korsano aqoontuna jaamacadaha ku soo ururtaa markaas iska waxay gaadhay heer ay jaamacadda lafteedii inoo keenayaan oo ardaydeena wax ku baranayso marka dadka Soomaaliland waxaan ku leeyahay soo dhaweeya jaamacadda Dr. Maxamed Yusuf Cilmi Peter Wawero Stanley Waodo iyo Professor Evans Kirosi oo kamid ah horjoogayaasha jaamacadda Mount Kenya University ayaa iyaguna uga warbixiyay TV-ga Home Cable waxa ay ka damacsan yihiin faraca jaamacadda ee ku yaala magaalada Hargeysa iyagoo dhanka kale shacabka Soomaaliland ugu baaqay inay ka faa'iideystaan fursadda jaamacaddu ay siisay isla markaana ay wax ugu qabtaan dalkooda Mount Kenya waxay qabtaa inta soo campus yar oo ku jirta Hargeysa kamid ay tahay concerning this occasion of the 6th graduation, as you have seen, it was a very well organized graduation ceremony. It started on time and it has ended very early so that the graduates and the visitors can be able to go home and celebrate their success. Mount Kenya University is one of the few private universities offering science and technology programs. Yes, when I talked about establishing a campus in Somaliland, I think we already have a footing in Acacia. We are going to have our first intake and we are serious about it, and I want to appreciate the government, the Republic of Somaliland. Mount Kenya University comes in handy to provide
higher education, quality education, to train the people of Somaliland, equip them with the skills and knowledge they need to develop their own country. That is our main purpose and objective of coming to Somaliland. We request the people of Somaliland to take advantage of the available facilities in Somalia and also in Mount Kenya University and develop their own nation. jaamacadda Mount Kenya University ayaa ka mid ah jaamacadaha loogu jecel yahay wadamada ku yaala geeska Afrika ee bixiya tacliin sare oo lagu kalsoonaan karo. Warka caalamkana waxaa ka mid ah dowladda dalka Nigeria ayaa waxay baadigo ugu jirtaa in ka badan 200 haween oo dayar oo wax ka baranayay dugsi ku yaala waqooyiga dalka Nigeria oo ay aftuubteen kooxaha dagaalyahaniinta Boko Haram. waxaana dowladda dadka ugu ballan qaaday inay lacag siin doonto cid soo sheegta warar dheeraad oo ku saabsan halka ay ku dambeeyeen hablahaasi la aftuubtay. waxay dowladdu ballan qaaday lacag kor u dhaafay 300,000 ay siin doonto cid soo sheegta hablahaasi halka ay ku dambeeyeen. waxaana howlgalladan kala qayb qaadanaya wadamada Mareykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Shiinaha. sidoo kale warar ka imanaya waqooyiga dalka Nigeria gaar ahaan xadka uu la wadaago wadanka Cameroon ayaa waxay sheegeen in dad kor u dhaafay 300 oo badan haween ay xasuuq u geysteen dagaalyahanada Boko Haram. Ahmed Saddam oo sanadka laga soo doortay gobolkaas ayaa eedeeyay kooxda Boko Haram inay xasuuq geysatay gobolkaasi inkastoo Boko Haram ay eedahaas loo soo jeediyay jawaab ka bixin. Cabdinaasir Ali Ile TV-ga caalamiga ee Sow magaalada Abuja. Wadalinta waxay noogu dhan war waxaan daliyay dibad bayniga haynay warka waxaan la socodsiinayaan waa Cabdinaasir Ali Ile tani kulid dambe nabadino.